halka aad naga daawanaysaan waa Tamaam Production. Maanta waxaa idiin haynaa qiso cajiib leh oo ka dhacday dalka Mareykanka. Haweeney la shaaciyay geerideeda oo indhaha soo kala qaaday. Nala daawo qisadan cajiibka ah. Waxaan idiin haynaa sheeko xiiso badan oo weli dadku ay la amakaagsan yihiin oo ka dhacday dalka Mareykanka. Haweeney geerideeda la shaaciyay oo indhaha soo kala qaaday. Kooxda u magacaaban dalka Mareykanka debdemisyada ee magaalada South Florida ee gobolka Michigan ayaa sheegay in haweeneydan da'deedu tahay 20 sano jir oo la shaaciyay geerideeda la arkay iyadoo neefsanayso markii loo sii waday goobta lagu diyaarinayay meedkeeda taawiir. Haweeneydan waxaa soo helay kooxdani oo u waramayay CNN-ka. Afhayeenka kooxdani oo u hadlay oo lagu magacaabo Bill Milona ayaa sheegay in gabadhu ay neefs ka socotay. Afhayeenka gobolka Oakland ayaa sheegay inay si cajiibaya amakaag ay ku noqotay xaaladani kooxdan ee debdemiska ay la kulmeen oo noqotay mid maskaxdooda qaadan weysay. Magaalada dhacdadani ee ka dhacday ayaa bayaan laga soo saaray oo arrimahan la xiriira. Dhakhtarka qaybta caafimaadka degdega ayaa shaaciyay geerida gabadhan oo u saxiixay inay dhimatay kooxdani debdemiska. Booliska ayaa durbaba la xiriiray dhaqaatiir baaritaano dheeraad ah ku sameeyay si xaaladdan wax looga ogaado si dadkeeda loo gaarsiiyo waxa jira. Kooxda diyaarinaysay goobtii lagu aasi lahaa janaasada haweeneydan ay ka dhici leed waxa ay dadkii hal mar ku soo baraarugeen in gabadhu ay neefsanayso taasoo sababtay in loo yeero dhaqaatiir caafimaad oo degdeg ah. Qof ka mid ah dadkii meesha jooga wuxuu warbaahinta u sheegay inay ku sii dhawaanayeen inay gabadha naasaan. Jeff Yeager oo ka mid ah qoyska gabadhan ayaa warbaahinta u sheegay, la yaab ayay nagu noqotay waana argagaxnay markaan xaaladdan la kulannay. Arrinta naga yaabis waxay ahayd in labadeeda indhood ay soo furtay intii aan la gelin goob qaboojiyaha ama talaagadaha meydka lagu xareeyo. Maamulka magaalada ayaa sheegay inay furi doonaan baaritaan caalami oo arrintan la xiriirta kadibna ay go'aan ka soo saari doonaan. Qareenka gabadhani oo warbaahinta xaaladda noocan oo kale wax laga weydiiyay ayaa ka aamusay. Warbixintan ayaa waxay si weyn u haysataa gobolada dalka Mareykanka. Welina waxaa laga wardoorayaa baaritaanada natiijada. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qisadani anigoo Hani Axmed ah idiin tabinayay. Tamaam Production kala soco sheekooyin qisooyin ku xiiso geliya oo qayb ka noqo asxaabteena. Aad ayay u mahadsantihiin asxaabteeda.